السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. welcome to my channel. وولاشنا نفعل بنتو ما نفعل ما maxay sameynaysaa waxay sameynaysaa nafعل oodkac maanta oodkac baa sameynaya sida ugu fudud oodkac u samaysan kartid sahal weeyaan simple inaba caadi ahayn ayaa sameysana insha Allah. hilibka meesha ku haysto waa 4 kiilo oo hilib ah si yar soo jarjaray marka iga yaraale ahaada videoga waa waayay marka waxaan sameynayaa markaan sameeyay hilibka aan jarjaray 5 daqiiqo ayaan biyo ku radiyay biyo oo kulul diiramada marka biyaha kulul muxuu naga caawinayaa dabka marka hilibka ku shubno suuna biyo uusan u dhalin ma fahanteen wax yar oo milix iyo waxaan isla dhigay biyo diiran marka biyi waa video waga yar lumay marka waxaan sameysanaynaa iminka deer hilibku waa kan waa soo miiray waa aragtiin dhiig uu leeyahay hilibka yani ma bislaanin biyo yar oo qanda ayaa muddo 4 daqiiqo xogaa oo iska 5 daqiiqo ayaan u daayay kadib waan ka miiray milix yarna waan markii hore ku radinay bas markii waxaan sameeynaa dabka ku shubanaynaa wax aan saliid ma isticmaalay waxaan isticmaalayaa waa subagan ayaa isticmaalayaa waa aragtiin waa 1 kilogram waa subag caadi ah waa aragtiin soo fadhiyo waa arkaysiin subagaas ayaan isticmaalayaa aniga marka subagan digsigan ayaan ku soo gadinay digsigan ayaan ku soo shubanayaa insha Allah ila socda digsigan ayaan ku soo wareejinayaa imika ku soo wada gadiyay subagii daastintii ku jirto oo dhan ku soo gadiyay meeshan waa aragtiin daasadii waa faaruq subagan waa subag isticmaalay supermarketyada meel kasta waa ka helaysiin dukaamada Pakistaanka kulli waad ka helaysiin insha Allah. hadda waxaan sameynaynaa marka asxaabta hilibkeena ayaan ku darsanaynaa meesha bismillaah hilibkeen ku darsanaynaa أنا سليد وما استعمالها hilibka waan sheegay subag bes ayaan isticmaalayaa qofku baahana uu isticmaali karayaa subag saliid labadaba waa isticmaali kartaa marka inta saliid ku karsatiin hadhoodina subaga waa ku darsan kartaa ma fahanteen hada way yartahay xoogaa waxaan sameynayaa subag kale ayaa ii yaalo daasad kale haaf ayaan ku soo darayaa waa arkaysiin hilibkii baa koreeya saliid subagii hoos ku jira marka waxaan sameysanayaa subag ayaan ku soo darsanaa insha Allah. tabaaraka Allahinku arkaysan waa ka soo kormartay subagayaan haaf ku darsaday anyway marka waxa sameeynaya marka muddo waxaan deynayaa waqtiga oo ogtiin oodkac ku iyo laba muqla joogo waa arkaysiin ma fahanteen marka sanayna ka tagdeena ma aha waana marka si laag joogtin isku daya insha Allah ina fahantiin waxaan jeclaa walaalayna ugu faa'iideeyo waxaan u garanayo sida ugu fudud oodkac ana xasaan isleeyahay shakhsi ahaantayda waa sida ugu fudud loo sameeyo oodkac way jirtaa qaabab hore dadkeena hore ay sameyn jireen inay intay dharariyaan hilibka ay qalajin jireen laakiin hadda waxaan ku wax kasta simple baa laga dhigay waa la hawl fududeey moogtaa marka waxaan sameynaynaa hadda waxaan sameynayaa hayl ban soo tuman hayl tuman waxaan isticmaalayaa cheese masha Allah tabaaraka Allah imka isku soo laabanay subagii haafku waan ku soo daray waa intuu ka soo kormaray marka maxaa sameynaa wali koo iyo laba oodkac ma joogo waxaan soo habeysanayaa haylkan arkaysan inta soo leeg yahay waa aragtiin si fiican hilkan ayaan si fiican u soo tumanayaa marka hilkan si fiican u soo tumo sandmirka ayaan ku soo mataqaanaa ku soo kala bixinayaa haduu qashin oo sandmirka kormaro iska tuuraya inta kale oo khafiifka ayaan soo qaanaya sababta soo sameeyna waxay tahay dhowdi hilka udgoon uu noqonaya hilibkana hadhowdi qofka afka ma galaya ma dhibayo waxaan kale oo sameynayaa aan ku darsanaynaa insha Allah hada aragtiin waajis si fiican oo aragtiin Portland waa la dhahaa laakiin isagoo qalqaleelo taagan waa arkaysiin waa heli kartiin dukaamada ka soo iibsan kartiin kan waxaan kaga darsanayaa xoogaa waxaan ku badsanina insha Allah qaraar suunan iga noqon wax yar lee laga rabaa ma fahanteen waan tusi doontaa ku dar insha Allah hilibkan soo tumanayaa hilibkana markaas ha ka taginina insha Allah وانا مركز الساعة gacanta ugu haysiin aad gadgadisiin ma fahanteen si fiican walaalay fahmaan ayaan jeclahay insha Allah ina fahantaan ma isku daya koo iyo laba ma jooga insha Allah hilkaas aan ku soo darsan hilka waxaa inuu hilka ka galo lafaha hilibka hoostiisa inuu galaan rabaa ma fahanteen hilkan ku soo jiiriyaa hilibkuna si fiican dhex galaa rabaa hilka caraftiisa aan kurmeel fog laga soo dhadhamiyo insha Allah waa aragtiin insha Allah ila socda hilka soo tuman doona insha Allah tabaaraka Allah arta hilka ku soo darsanay waa arkaysiin masha Allah inta soo tirtiranayaa
aragtiin heelka si fiican ayaan usoo tumay usoo shaandhameeyay. waa aragtiin sidaana nin shaqeeyaan kusoo dhameeyay. halkan waxaan ku haystaa asxaabta, waa aragtiin jeel magacii waa iga lumay, magaca commentiga hoos igu soo reeba insha Allah. Portland waa la laakiin normal ahaan wax yar ayaan ku darsanayaa insha Allah, wax yar ayaan ku darsanayaa ila socda. waan tusaya intaan ku darsanayaa. waa arkaysiin intan ayaan ku darsanayaa insha Allah, ila socda. si fiican ayaan isku walaaqaynaa. marka qofka u baahan qorfo ku darsan kariyaa, adoo qorfahaas ku darsanaya isagoo si yar hada ku dhaxridatid insha Allah. yani hadhowdii ku dhaxwaayay qorfaha waaweyn ku dhaxrita insha Allah na caraf ayay noqonaysaa. laakiin aan normal ahaan qorfo ma isticmaalayay, ma fahanteen? qorfaani ma isticmaalayay. dadka cunaya qof kamid ayaa jira qorfaha yani urkiisa necab ka, sidaa darteed ani ma isticmaalayay insha Allah. waxaan sameynayaa hadda xabad toon ayaan soo fiiqan insha Allah. xabad toon ayaan siisa ugu riday, hadhowdina markaan aan hilibka ka saarayan xabad toon gaar ayaa oo saaraya, ma fahanteen? insha Allah toonta ku soo darsan insha Allah. waa arkaysiin toontii xabada waa soo fiiqay. waxaa xabad toona, toonta maan tumin, xabada sideeda oon tumneen bes oo soo fiiqay kaliya ayaan saa ugu ridayaa insha Allah. hadhowdina hilibka si tartiib ayaan u saarayaa, caraf ayay u yeelaysaa insha Allah. waa aragtan hilibkeena, hilib yaroo jilicsan, si yaro simple oo fudud loo kariyay insha Allah, ila socda. hilibku soo dhowya, wax yar ayaa u dhiman insha Allah. waxaan doonayaa heelkaaytan ku daray inaan uu ka galo carafta lafaha, inuu ka galan doonay hilibka si fiican u dhex galo insha Allah. hadhowdii ani waxaan sameynayaa subagii hilibka waan kala saarayaa, subagana gaar hilibkana gaar insha Allah, ila socda. marka waa aragtiin insha Allah. isku soo noqon doonaa, haduu noo dhow yahay, wax yar baa nooga dhiman insha Allah. isku soo laaban doonaa insha Allah. tabarakallah, codkan saasoo kusoo baxay. waa aragtiin furfurna wuu yahay, jilicna wuu yahay insha Allah. ilmaha xataa waa siisan karaysin yariisa. saliidii oodkaci waa kala saaray. anu subag gaar ayaan u rabaa, oodkacana gaar ayaan u rabaa, ma fahanteen? marka haddii lacala aad rabtiin oodkaca inaad saliida subag u dhex darsatiin, ha ahaado inay subag u badnaado. maadaama anu subag uu yar yahay, oodkac kuma dhex darayo. haddii uu subagu uu kor marin oo hilibkiinu kor yahay, yacni wuu niga uraya, hadhow hilibka kor wuxuu ka yeelanaya cadcadaan, ma fahanteen? haddii kale hadduu subag badan haysatiin insha Allah, subagaas xataa korkeeda saliida ku darsan kartiin caagad, hadhow oodkaca dusha waa kaga shuban kartiin. laakiin ani normal ahaan waan kala saaray, subagana gaar baan u rabaa, oodkacana gaar, ma fahanteen? hilibkan waa ka jileec waay, maasha Allah tabaarakallah, kulli isku midab waay. waa aragtiin ma kala duwana, jileecna wuu yahay maasha Allah tabaarakallah insha Allah. markaan kusoo habeysanayaa isku soo laaban tabaarakallah. waa isku soo laabanay maanta. subax oodkaceen bartan buu noogu dhamaaday, gunti gabagabadii baa marayna insha Allah. waa arkaysin oodkaca suu furfur u yahay, isku midabna wuu yahay, kaala iska arag. waan haawinayaa insha Allah. hadhow markaan haawiyo waxaan doonaya inaan ku gediyo, waxaan rabaa inaan ku gediyo jamcadan ayaan doonaya inaan ku gediyo. jamcadan daboolan insha Allah. waa arkaysin jamcadan ayaa rabaa inaan ku gediyo. jamcadan saan buu dheer tahay, waa arkaysin insha Allah. waa aragtiin jamcadan ayaa doonaya inaan ku gediyo insha Allah. halkan waxaan ku shubanay asxaabta subagii ayaa rabaa ku shubtay. waa aragtiin halkan buu noogu jiraa insha Allah. hadhow wuu fariisan doonaa. marka oodkacayna saan buu kusoo dhamaatay. waa aragtiin insha Allah inuu mugdi yahay, wallahi ma aqaan kaamirada, laakiin si fiican ayuu qurux igu soo baxay insha Allah. hadaa arkaysiin saan buu kusoo dhamaaday oodkacayni,
marka ha ilaawina like na saartiin, subscribe, like, share walaalaha la dheer insha Allah sida ugu fudud loo kariyay waa la socotiin insha Allah. marka video dambe isku soo noqon dambe. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.